dagaalkii Badr safarkii Quraysh iyo muslimiinta 313 muslimiina iyo 1000 oo Quraysh ah hubiyari gaajo cabsi laakiin dagaalkan wuxuu noqday maalinkii la kala saaray xaq iyo baadilka kadib markii muslimiinta laga saaray Makka Quraysh wali ma aysan joojin dhibaatada waxay qaateen antidii muslimiinta waxayna qorsheynayeen inay islaamka baabi'iyaan maalinkaas muslimiintu waxay maqleen ganacsi aad u weyn oo Quraysh ay leedahay oo ka soo laabanayay Shaam waxaana hogaaminaya Abu Sufyaan nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu la tashaday saxaabada muslimiintu ma aysan u bixin dagaal weyn waxay u baxeen safar yar oo ay ku joojinayaan safarka Quraysh laakiin arintu si degdeg ah ay isku bedeshay Abu Sufyaan wuxuu ogaaday qorshaha muslimiinta wuxuuna farin degdeg ah u diray Makka nabadbaadiga Muhammad iyo asxaabtiisa ayaa noo soo baxay markaas Quraysh oo caraysan waxay soo diyaariyeen ciidan aad u weyn Quraysh waxay la soo baxeen 1000 askari farasiyo hub culus iyo wax walba oo ay dagaal ku kali karaan waxay doonayeen inay muslimiinta hal mar wada baabi'iyaan nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo saxaabadu waxay joogeen meel la yiraahdo Badr markii ay maqleen ciidanka weyn ee soo socda qaar badan way naxeen sababtoo ah muslimiintu waxay ahaayeen kaliya 313 nin sidaas darteed aad ay u cabsadeen maadaama hubkoodu yaraa tiradooduna yarayd qaar waxay wada saarnaayeen hal geel oo ay isku bedelayeen laakiin nabiga sallallahu alayhi wasallam qalbigiisu aad ay u adkaa wuxuuna ku kalsoonaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala nabigu wuxuu bilaabay inuu saxaabada la tashado saxaabi kamid saxaabada loolan jiray Miqdaad ayaa istaagay wuxuuna yiri rasuulka Ilaahay ma dhigi doono sidii reer bani Israa'iil ay nabigu soo yiraahdeen adiga iyo rabbiga taga oo dagaalama inna ha huna qaacidun annaguna halkan fadhiyeena laakiin annagu waxaan leenahay adiga iyo rabbiga dagaalama annaguna waa idinka dagaalameena ereyadaas waxay qalbi geliyeen muslimiinta oo dhan nabiga sallallahu alayhi wasallam aad buu ugu farxay kadib wuxuu qacmaha kor u taagay oo Ilaahay bari nabiga sallallahu alayhi wasallam habeen dhan subaxdii xigtay labadii ciidan way soo yimaadeen muslimiinta oo aad u yar iyo gaalada oo aad u badan hub ciidan wax walba dagaalkii Badr wuxuu noqday dagaalkii ugu horeeyay ee islaamka laakiin su'aashu waxay ahayd sidee 313 nin oo muslimiin ah uga adkaadeen 1000 nin oo reer Quraysh ah oo hubaysan qaybta xigta malaa'igtii dagaalka soo gashay iyo sidii madaxdii Quraysh dhulka ay ugu wada dhaceen fadlan channelka subscribe saar like na saar siina share garee xikmadu waxay ku jirtaa qisooyinkuna waa hanuunkuna waa janno